السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهني ودا سلامي دمانتينا meel walba aad wada joogtaan maanta waxaa idin soo bandhigaa warar laga yaabo in aad weligaa maqlin qaybta 18aad daawasho wacan naag oo u dhalatay dalka Ingiriiska 1980kii dadka banaanaha wax ku gado ay waxay ka gadatay faraanti qiimihiisu yahay 10 pound ninka faraantiga gaday iyo ayada waxay isdhaheen faraantigan waa faraanti oo normal ah waa faraanti qiimo lahayn muddo 35 sano iskama bixinin faraantigii 2016kii faraantigii ay waxay u qaaday dukaan waxay dhahday faraantigan ii baar qiimihiisana ii sheeg ninka dahablaha wuxuu ku dhahay faraantigan waa faraanti oo qaali ah qiimihiisana haddaan kuu sheego xataa kama gadan kari waxay ku dhahday dhib ma lahan waxaa ii sheegtaa kaliya qiimihiisa wuxuu ku dhahay faraantigan waa diamond qiimihiisana wuxuu gaaraa 350,000 pound faraantigii bishan gudaheed ayaa waxaa la soo dhigaa xaraashka qofkii lacag badan bixiyo ayaa gadanayo macnaha 350,000 pound way ka badanayeen qiimihiisa diyaarad ka mid ah diyaaradaha EasyJet labada motor ayaa mid ka halaabay iyadoo taagan elboor ku yaalo koonfurta Spain kabtaanka diyaaradda mikrofoonka ayuu ku soo hadlay dadkii ayuu wuxuu ku dhahay hala codeeyo in aan diyaaradda hal motor ku kaciyo oo waliba laga yaabo 50% ayaa badbaadi karnaa ama waa deganaysiin waa sugaysiin ila diyaaradda motorkeed lagu sameynayo 10% waxay u codeeyeen in uu diyaaradda saas ku kaciyo iyadoo hal motor kali u shaqeynayo inta kalena 90% diyaaraddii orod ay ugu soo degeen kadib diyaaraddii way baaqatay Joseph nin la yiraahdo waa nin faqri ah oo ku nool dalka Kenya Joseph xaaskiisa way ka tagtay sababtuna waxay ahayd shilinkii uu helo wuxuu ku galaa sharad website la yiraahdo Betway ayuu ku bixin jiray lacagtiisa dhan waa website sharad lagu galo ciyaaraha sportiga xaaskiisa markay ka daashay in ay ka celiso website-kan way iskaga tagtay muddo kadib Joseph wuxuu ku guuleystay 20 milyan shilin oo Kenyaati ah xaaskiisa way maqashay waxay isku daysay in ay u soo laabato laakiin uu ka diiday naag kale guursaday xaafadii degnaa xataa uu ka guuray suuq oo ka mid ah suuqyada dalka Ruushka waxaa la soo dhigay makiino oo ka gadan kartid like iyo followers Twitter ha ahaado ama Facebook ama Instagram macnaha accountigaada ayaad gelinay inta like aad rabtid ama inta oo followers aad rabtid ayaad ku qore kadib lacagta ayuu kuu sheegaa kadib lacagtii ayaa meesha ku riday waliba makiinada waxaa iskaga qaadi kartaa sawir dadka oo isoo weydiinay Facebook page sidee like badan u helaa ka gaar makiinadan macallin oo la yiraahdo Danny Williams oo ku nool California maalinta Thanksgiving la yiraahdo oo fasax ay tahay ayaa ardaydii wuxuu ku dhahay fasax ma lihidin wuxuu ku dhahay dhammaantiin waa inaa imaatiin waliba waxaad qaadanaysiin imtixaan ama waxaad galaysiin imtixaan qofkii imaan waayana imtixaanka uu ku dhacaa mana ugu soo celinayay imtixaanka ardaydii way yaabeen waliba way ka xumaayeen in oo maalin ay fasax tahay jaamacadda imaadaan waliba imtixaan qaataan maalinta imtixaanka markaa la gaaray dhammaantood way imaadeen macallinkii wuxuu u qeybiyey waraaqada imtixaanka markay fiiriyeen imtixaanka dhan wuxuu ahaa hal su'aal hal lagu daray hal intaas idin soo bandhigay waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iideen like ha ilaawin haddaa ka heshay videogana share gareey fadlan haddaa channelka cusub tahayna subscribe dheh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته